madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa shir gudoomiye kulan degdeg ah oo yeesheen golaha wasiirada dowladda Puntland kaasi oo looga hadlay ammaanka guud ee deegaanada Puntland gaar ahaan howlgallada ciidamada difaacu ay ku xoreynayaan gobolka Sool. wariyahayaga Cabdalla Guure ayaa faahfaahinta warkan inoo dhameystiraya. shir degdeg ah oo isugu yimaadeen golaha xukuumadda dowladda Puntland oo shir gudoominayay madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa looga hadlay duulaanka lagu soo qaaday Puntland iyo shirkii golaha iskaashiga dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya ee Baydhabo lagu qabtay. ugu horreyn golaha xukuumadda dowladda Puntland ayaa ka dooday xaaladda duulaanka lagu soo qaaday dalka iyo ka hortagga cadawga ummadda Puntland. golaha xukuumaddu waxay u sheegeen shacabka Puntland in Puntland u diyaar garoobayso dagaal waqti dheer socon doona oo lagu difaacayo dadka iyo dalka sida darteena loo diyaar garoobo ilaalinta sharafta shacabka Puntland iyo xoreynta dhulka cadawgu haysto. dhinaca kale golaha xukuumadda dowladda Puntland ayaa u sheegay shacabka Puntland inay garab istaagaan ciidamadooda iyo dowladooda maadaama lagu soo duulay dalkooda iyo sharaftooda. golaha xukuumadda ayaa sidoo kale waxay u sheegeen shacabka ku nool gobolka Sool inay garab istaagaan ciidankooda una istaagaan xoreynta dhulkooda. ugu dambeyn madaxweynaha dowladda Puntland ayaa uga warbixiyay golaha shirkii golaha iskaashiga dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya wuxuuna madaxweynuhu u sheegay golaha in shirkaas uu ahaa xoojinta xiriirka dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya wuxuuna ku soo dhamaaday guul iyo sidii loo xoojin lahaa hannaanka federaalka ee dalku qaatay. Cabdalla Guure warbaahinta dowladda Puntland magaalada Garowe.